waxaa laga yaabaa inaad soo iibsatay telefoon iPhone ah. waxaa laga yaabaa inaad u isticmaasho inaad asxaabta kula xiriirto, mise aad video ka daawato ama YouTube ka daawato ama game ku ciyaarto ama sawiro isaga qaado. maanta waxaan daaha ka qaadi doonaa awoodda ay leedahay kaamiradan oo ay ku imaado telefoonkan iPhone ah adigoo waxba uga baahneen kaamiro weyn inaad soo iibsato. wax walba aad u baahan tahay iyo settingeeda iyo sida loo isticmaalo waxaan ku sheegi doonaa isla videogan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامة دمان أصحاب تملك السؤال جوكتان كسو دوادا channel كا مقعيقو عبد الرحمن يرو وحان سمايا فيديو يالكو سابسان سيدا وحلو دوو يا قلب وحلو دوو يا عشركو سابسان دينا تكنولوجيا دا هدي أتحيسيسو انتاسي فضلا سبسكرايب سار ونكسو دواو channel كا. تليفون كان تليفون ايفون 12 برو ماكس لدهو waa telefoonka ugu weyn ee shirkadda Apple ay soo saarto. dhaladiisana waa 6.7 inch waaye oo macnaha telefoon ka weyn ay shirkadda Apple soo saartay ma jirto. waa telefoonka ugu weyn. telefoonkan waxaa aad loogu hormariyay dhinaca shaashada iyo dhinaca bateriga iyo dhinaca processorka oo aad iyo aad ma aragtay refresh rate wax la dhaho. baterigiisana bateri aad loo soo hormariyay waaye uma baahno inaad mar walba charger ku hayso, sababtoo ah haddii mar aad charger gareyso oo full charge aad sameyso waxaa laga yaabaa adoo maanta dhan isticmaalayo inay hal maalin 24 saac ay ku hayso bateri. telefoonkan dhinaca kaamirada ma jirto telefoon la mid ah oo maanta suuqa yaalo oo aad ma aragtay oo la tartami karo telefoonkan kaamiradiisa telefoon la mid ah. waxaan ma aragtay in telefoonkan uu wata 3 kaamiro, mid waa iyo mid hore oo 4 ah ama midda hore oo ma aragtay oo face oo frontal ma aragtay camera ah. kaamirooyinkaas oo dhan waxaa ma aragtay loogu talagalay inaad u isticmaasho inaad ma aragtay ku samaysato video ama sawiro aad u qurux badan inaad ku qaado. waxaana ma aragtay oo isticmaala wax la dhaho oo ay ku soo dartay shirkadda Apple sensor shift stabilization wax la dhaho. Apple laakiin markii ay ma aragtay ay sameynaysay teleefoonadan ay soo saareysay ma samaysan u soo sameynin inay ma aragtay baakada ay soo raaciyaan chargerka oo ma aragtay telefoonka lagu charger gareeyo. kaliya waxay soo raaciyaan fiilada oo ma aragtay lagu charger gareeyo iyo telefoonka bis. dad badan oo anaga naga mid ah telefoonka way soo qaadaan appka kaamirada ay furayaan ka bacdina ma aragtay waxay bilaabayaan inay duubaan. marka sidaas ma ahan jooji. si aad u hesho video quality-giisa aad u sareeyo marka waxaa u baahan tahay inaad marka hore soo samayso kaamirada settingeeda inaad soo samayso. si aad u soo samayso kaamirada settingeeda waxaad u baahan tahay inaad soo furto settings markaa soo furto ka bacdi waxaa u baahan tahay inaad doorato 4K ama 2160p waayo ma aragtay wuxuu ku siinayaa videoga oo ma aragtay oo clear ah oo sharp ah. haddii aad ka weysto xataa telefoonkaaga inuu haysto ma aragtay inuu haysto 4K inuu haysto waxaad isticmaali kartaa 1080p ama iskala 1080 waa midka ku soo xigo 4K. laakiin haddii telefoonkaaga 4K wato ku fadlan isticmaal 4K. laakiin waxaa u baahan tahay telefoonkaaga inuu leeyahay ma aragtay internal storage ama telefoon oo maskaxdiisa weyn tahay oo ugu yaraan 128 GB ah haddii aad awoodo. hadda telefoonkan dabcan waa 256 GB waayo markii aad 4K duubaysid waxa waaye fail weyn oo qaadanaya oo xajmigiisa weyn. marka waxa waaye isla markii uu buuxsamaya haddii oo ma aragtay telefoon oo 64 GB ah ama iskale ama wax ka yar aad haysatid isla markii uu buuxsamaya kaamiradana hadhow marka ma aragtay ma ku suura galayso inaad wax kale ku sii duubto, inaad ka bixiso oo video kale soo geliso oo ka bixiso oo computerka uga daadiso oo haddana duubtid. laakiin markii oo ma aragtay kaamirada aad marka telefoonka soo iibsanayso iPhone mar walba isku day inaad soo iibsato mid oo ma aragtay internal storage-ka oo aad u badan sida ma aragtay 228 ama wax ka sii badan 256. frame rate waxay ku xiran tahay telefoonka aad haysatid iyo waxyaabaha aad rabtid inaad duubtid. مثلا haddii aad rabto inaad duubto video oo ma aragtay sidaan oo kale adoo fadhiso oo hadlayo oo kale waxaad dooranaysaa frame rate 25 ama 24 frames per second.
ayaad dooranaysaa. haddii aad rabto inaad maaragtay wax oo motion ah oo hadhowna aad speedka maaragtay ku daraysid ama speedka slow ka dhigaysid, waxa aad maaragtay muhiim ah inaad doorato 60 frames per second. telefoonka dabcan iPhone-ka wuxuu haystaa 60 frames per second midda ugu badan aan isticmaali karo. hadhow marka aan rabo inaan edit sameeyo, waxaan sameyn karaa ama speedka ayaan maaragtay aan xukumi karaa, oo maaragtay speedka slow ayaan ka dhigi karaa ama fast ayaan ka dhigi karaa. marka waxayna ku xiran tahay marxaladda aad u isticmaalaysid. exposure iyo white balance midkani aad ayuu muhiim u yahay, sababtoo ah exposure-ka wuxuu xukumayaa aftiinka kamerada soo galayo. aftiinka kamerada uu soo galayo hadda automatic ka dhigto, haddii oo maaragtay meel qorx aad tagto aftiinka zaa'id oo noqonaya, meel hoos hadaad tagto waa kala duwanaanaya. marka waxaad duubaysid oo dhan marka hadhow wuu kaa qaldamaya. waxaa muhiim ah inaad maaragtay labadoodaba aad ka dhigto, white balance-ga iyo exposure-ka labadoodaba aad ka dhigto manual aad ka dhigto, oo adiga aad xukumi karto. kameradan awoodda ay leedahay adigoonan uga baahnayn wax kamera weyn ama maaragtay inaad kamera weyn soo iibsato, bal ila fiirso videoga aan duubay. okay, talada ugu horeyso marka isticmaalaysid inaad telefoonka wax ku duubto, marka hore uu isticmaal si horizontal ah. ha u isticmaalin telefoonka marka kamerada gadaal isticmaalaysid inaad saan u isticmaasho. mar walba oo wax duubaysid inaad saan u isticmaasho. mar walbana labada gacan ku qabo si oo maaragtay image-ka aad duubaysid ama sawirka aad qaadaysid ama iskala video-ga aad duubaysid si oo stable u noqdo. waa inaad labada gacan ku qabataa oo si deganna aad u haysaa. mar walbaba isticmaal wax oo maaragtay telefoonka kaligiisa ma ahna, wax oo maaragtay saacidayo. waxaan maanta meeshaan idinkugu hayaa laba qalab oo ah midkan oo tripod-ka ah iyo microphone-ka. oo hortay saasaan u dhigo, marka waxaa laga yaabaa inaan sidaana wax aan ku duubo anigoo hadlaayo caadi aan u hadlaayo. marka haddii aad microphone-ka wax ku duubaysid waxaa u baahan tahay qalabkan yar, ama maaragtay marka iPhone wax ku duubaysid geedkan yar u baahan tahay oo meeshaan aad ka gelinaysid midkan oo labadan aad gelinaysid, kana aad telefoonka meeshiisa aad gelinaysid. so marka dhac waa shidaysaa marka shido maaragtay marka aad rabto inaad marka sida fadhiga aad ku duubto aad rabto, waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho kamerada gadaal. marka waxaa isticmaalaysaa tripod oo sidaan oo kale ah. kameradan inaad isticmaashid marka aad rabto inaad duubto, qaabkan inaad marka aad u hadasho, oo kamerada marka rabto inaad adiga iska duubto adigoo marka hore setting inta aan soo sheegnay dhan aad duubaysid. qaabkana marka wax u duubaysaa adigoo marka uu isticmaalayo microphone haddaa heli karto, haddaa heli midka inta lagu xiranayo midkan oo kale ah
haddaa hesho midkaan oo kale inta lagu xiranayo inta haddaa kan haysanin kanaa ku bedelanaysaa kabacdina maaragtay intaa ku xiranaysaa oo midkaan waxaa loogu talagalay markaa vlog sameynaysa sidaa loogu talagalay kaamirada midkaan weyn haddaa fadhisidna oo aadan dhaqdhaqaaqeynina waayo kan fiili yaroo wataa fiilidiisana meeshaan uu ku jiraa marka inaa inta ku surto oo inta kanna inta aad ku dhegsato marka microphone noocan oo kalena waa isticmaali kartaa haddaa haysatid mise microphone noocan oo kale marka midka oo adiga oo maaragtay heli karto ayaad isticmaalaysaa waxaan kaloo maaragtay oo u baahan tahay inaad isticmaasho calaamadahan oo guideska ah oo saddexda waxay ku sheegaysaa rule of third wax la dhaho saddexda riigmo oo maaragtay sagaalka god ama maaragtay 1 2 3 marka sagaalkaas god waxaa maaragtay ay ka caawinaysaa inaa maaragtay videogaada video oo dhinacna u badnayn oo ahaado dhinac oo maaragtay asaga dhan mid toosan iyo meesha adiga aad ka istaagaysid mar walba waxaa u baahan tahay inaad dhaxda isku aadiso mis dhinaca ka istaagto qaabka wax u duubaysid marka midkaasna inaad soo active garaysid isku day marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa maanta videoga haddii aad ka heshay videogan fadlan like saar maaragtay subscribe waxaan soo wadnaa videoyaal aad u xiiso badan waxaana maaragtay inoo balan ah video kale oo aad iyo aad u muhiim ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu